برناردو سيلفا وكيو هبين كارونتي لبضر دينا عيدا كاني عياريان عاوة دربي قوين دربي مانشستر وكان سيتي دبرويا يس ونير سيتي أفر دقيقة عيارتا كيفين دبرويا وحا إيمانيسا مركو يجري مالكا inaan Champions qaadno waxaan ka doorbidey ku guuleysiga Premier League sanadkii shanaad waxay noqonaysaa markii afaraad oo ay qaadayaan Premier League 5 sano gudaheed haddii ay sanadkan gacanta ku dhigaan Premier League City goal Manchester United ever runtii habeenkii waxay ciyaartu bilaabatay iyadoo labada dhinac ay u dhaxayso dhibco gaaraya ilaa iyo 19 dhibcood waa farqi dhibcood oo aad u weyn laad uu soo laaday Bernardo Silva waa Grealish Bernardo baa qaatay wuu soo dhigay meel cidna aanu ka celin kubadda uu la yimaaday ka helay markaa uu wash ku siiya goolka Master Degay oo ahaa Master Safe habeenku durbayntanu yaani dhow kala qaadin baaba loogu shubay oo kii istaagsan inuu fariisan hoodii gondhimbay City ku bilaabeen goal Man United City goal Manchester United ever waa mid kamid ah goolashii ugu soo dhaqsiyaha badnaa ee ka dhasha darbiga Manchester inkastoo kulankan ay adkaato yani kooxda gurigeeda aanu joogin laakiin caawis dib u hogaamisay ogowna xilli ciyaareedkan 20kii ciyaarood Man City ay ku hormartay goolka gabiyahaan waa badisay waa 20ka kulanyaa ay Man City adkaatay waa kulanka iyagu gool hormarayeen iyagu waxay ku dhibay way habeenkii gool laga hormaraa United markeeda waa kan durbo laga bareejayn karaya no waynu noqon Cristiano caawa maqan yahay iyadoo dhowr arinba ay ka soo baxayso odaga shalayba waa laga waayay hotelkii Manchester ee Lowry Hotel habeenkan oo kale Ronaldo aad bay ugu baahnayeen Red Devil inkastoo mid qudhoodu ay iska fiihiin fiicanaansho ka muuqan karto laantiis Grealish markan Chagistil Grel waa yara asaga shaqooyskan buu ku dhintay shaqooyskan iyo waxaan buu ku dhintay 100 milyan laha Gordon wuxuu yiri wariyaahe anu kaamar uu afarsan gool laakiin si fiican u ciyaaraganimo u ciyaar buu yiri markan waa ka United meel fiican Jadon Sancho still United yes 1-1 United is back Jadon Sancho uu ka dhaliyo kooxdiisii hore waliba si stayla oo fiican habeenka ciinkan oo kale hal gool ciyaarta ma go'aaminayso habeenka ciinkan oo kale waa uu imaanaya goolku waa uu imaanaya si fiican buu qaatay uu xakameeyay ciyaarta waraysi ka qaaday ciyaartooyga Manchester City الله دبغم وها سيده في عنك وعياري مركبا كبدل لوgu qabtay lagu jiiday United contract ku fiicnay warigoodba ya inta saal looga qaatibaan halka loogu shubay wala gool buu ahaa waa tan ku leeyahay habeenku waa habeenku ugu fiicnaa United ay arkayso ya jeedo wajida inta lagu qaaday Broniga lagu jiiday Kyle uu Aluraab iska aaday Rodri la dhaafay halkaas loo dhigayo ninka City goolka ugu jira Ederson ayaantan City ba waxa lagu yaqaanay inay goolkoodu goolba ku dari kareen oo laga daba yimaado 1-1 والله جدون بعد اللي كوحدي سيورنا ugu shubay habeenku waa weyn yahay still horteena ciyaar adag baa jirta wali Liverpool yes waxa weeyaan aad bay ugu yara farxaya midatan والله waa ka Ralph darbigiis ugu horay buu tijaabinaya habeenka ya والله way yimaadeen City jibaala u yaala habeenka wiilkii ka soo baxay akademiyada City ee Jadon Sancho ayaa gool ku dhaliyay والله جول بوها فانتاستيكا سيتي ايانتان اد بي u yara shoogayaan difaaca Grealish adiga goolkaaga soo qasaar u dulqaado markuu ma taqaan shaqooleynayay ya oo islaha kubadda ninka hor ugu baas ayaan kubadii laga faa'iideystay Jadon waa ka daba yimaaday habeenka kuwa ka ciyaaraya still Grealish oh no waa laga soo dhigtayo ya markan waa Pogba Elenga Bruno Grel Foden save Marcelo Bernardo laba gool sete way dhaliyeen oo goolkii labaad bay ka yimaadeen City markale soo laabteen markii si fiican uu kubadda u kontrolay Foden ayuu ka nagu daray wow City's back والله ويمادن ست مركز United ay gool ku bareeyay waxa la rabay inay si ragmo ciyaaraan Allah si fiican buu ciyaaray sayfu badbaadiyay wuu ku celiyay Kevin habeenka Kevin De Bruyne way iska daa
qaladku alenga balaaday waa la soo celiyey alla magwaytii ku dhacday baan la yaabay maya warbax waa london fooyaan wow walla gool baa ka dhashay city laba gool bo Foden saaxirka yare city wala ma waa ka ninka kadibna intuu saa u qaatay buu ku garaacay goolka dahay baa ka diiday golol shumaanu toosin waa ku laba celiyey yaa kadib Kevin baa halka u dhigay waxa ka qaban kartay wiil wariyaahe yaa city to yaa city way labaysay oo runtii laakiin iyagu ayaantan bahash baynu difaacashada ku dhiba yaa markay dhaliyaanba waa laga daba keenaa ayaantan weli waan ku leeyahay city ay ma united ma quustaan ilaa hal gool meelaha la wareegaysteen walla way ka soo laabteen goolkii mar kale bay city dhaliyaan waxay u muuqatay inay dayacaad sameeyeen markay ciyaartu goolku bareejay kadib maalmo yar ilmo yar madax ku digsanayaano kadibna waa kaayo nimankii bay la ciyaarayaan Liverpool ahaa city laad bay laadeen koona oh yes saddex gool iyo gool khalaas city waxay u badan tahay habeenkii darbiga gabagabaysay Riyad ayaa dhaliya gool fantastic ugu dambeeyay Championska England ayaana doonaya mar kale inay koobku difaacdaan city waa wax kale ya waa dhaliya gool fantastic ah ugu dambeeyay United habeenkoo dhanna waa laga fiicnaa ugu dambeeyayna waa gabiyahanna waa la garaacaya imika Allah bayhad waxas dibruyo waxas wali cale bal firi waxas macquul maahan bal firi waxas qiyaas bal firi waxas waxaanu kifin baa sameyn karaya waa baas la isugu dhigaya cali waraabin isaga soo baasay baarta firi koorno aad sugaysaa idinka ya ibroon saa loo soo qoroofiyo bulaaqada isku dhigaya dibru wana waalaya wana goolkiisii 20aad Riyad Mahrez waa siisakay ugu fiicnaa abid kubadda cagta England city walla habeen kale qurux badan bay u soconaysaa ya city 3 gool United goal yeah wala kala tagay orda maahan walla 20 gool siisa kama waxda ma aragtaa 20 buu maraya inaba caadi maahan Riyad wasiisaki ugu fiicnaa waayihiisa England wayaanka kan inaba caadi maahan Riyad Mahrez wasabta aan maanta ku lahaa iska fariisay dhacdhooga aan 23 kulan gool ka dhalin Mahrez waa ugu shubay kuwa ka 19 dhibcood ku dhaxaysay hadda 22 dhibcood baa noqonaysa habeenka mid laga salmari doono oo United Man City ka hormari doonto yani balfiri laba dhinac waaya oo Manchester oo dirisaya 22 dhibcood baa laga hormaraya naya wixii labada kooxood waxa dareemaysa in kooxdana jirolay ay tahay laakiin ma inad istir hadii la soo celiso kulku iska doo iman karaya Barca City wareeg iyaga ayaa wajiga kaga garaacay ya habeen la jijibiyay iyagoo dhan weeyaan banooni iyo baas iyo guul laga gaarayo weeyaan offside baa la yiri goolku waa la disawlad garay waa la diiday VAR la fiirinaya laakiin goolkii la diiday macnaha inuu offside yahay in kale ayaa la fiirinaya at the moment of the pass baaska just see a sort of light blue green boot there baaska markuu qaadanay baa laga hadlayaa ninkan ruqana dhigay goal side of Mahrez and his right knee jilibkiisaan kala la fiirinaya laakiin lugba jilibkiisa midig baa la fiirinaya because of Tellers' foot jilibka baa la fiirinayaayo shaqada jilibka xataa waa ka dhigayaan offside waxay u badan tahay in ciyaarta caadi loo bilaabi doono offside weeyaan wajira no yes wajira goolka afar gool goolka wajiraayo waa City afar gool si style ah ayaa loogu raaxaystay Man United oo ardaadiqad looga dhigay afar gool City United goal Riyad Mahrez 2 gool De Bruyne 2 gool plus 1 caawin habeen weyn yeah مع السلامة habeen buu ahaa nimanka kan lagu dardaray darbiga kani weyn Riyad Mahrez madaxu kaga garaac Bruyne ka waran ka dhaliya goolka waa jajabeen jugta laga geliyo ardaadi khad baa laga dhigay gabiyahanba sida ilmaha mararka qaar wareerinaya mooyaane nimanka kan noocan oo kale xoog bay u sheegtaan iyaga
wili United ayaanta waa iska bisteed moogtahay garsooru xataa ma badnin baxasho 2 daqiiqo kaga dhigay inay jawaabka goolasha meesha ka badnaan lahaaba war waxa arkiishanaad bay geeyni karayaan hadii laadkan ciyaarta si la sii wadaba Gondwan Estelle Kai warna